Kow iyo soddon jir u dhashay dalka Shiinaha ayaa ka yaabiyay dalkiisa iyo bulshadiisa kadib markii hooyadii oo naafo ah uu dusha isagoo ku xambaarsan la soo maray guud ahaan dalkaasi. Intaan u gudagelin sheekadan xiisaha badan, haddii ay tahay markii kugu horreysay aad na soo booqato, waxaan kaa codsanaynaa in aad nagu soo biirto mahadsanid. Kow iyo soddon jir u dhashay dalka Shiinaha ayaa ammaan iyo bogaadin waxa uu kala kulmay fal bini'aadanimo ah oo uu u sameeyay hooyadii. Waxa uu hantidiisii uu haystay oo dhan uu u iibiyay hooyadii oo dartii kadib markii hooyadii ay ku naafowday shil gaari oo ay gashay markii wiilkeeda uu ahaa 8 jir. Wiilkan dhalinyarada ah ee kow iyo soddon jirka ah ayaa hooyadii isaga oo dusha ku xambaarsan waxa uu la soo maray guud ahaan dalka Shiinaha, isaga oo hooyadii geenaya meelaha ugu quruxda badan dalxiiskana ku habboon ee ku yaala dalka Shiinaha. Wiilkan ayaa isaga oo 8 jir ah familkiisii waxa ay galeen shil gaari oo khasaare xun u geystay familkiisa. Shilkaasi waxaa ku geeriyooday aabihii, sidoo kalena waxa uu dhaawac halis ah ka soo gaaray hooyadii. Sidaas daraaddeed isaga iyo walaashii waxa ay ku qasbanaadeen in ay iyagu iskoriyaan, sidoo kalena ay daryeelaan hooyadood. Wiilkan ayaa muddo yar kadib waxa uu ku guuleystay in uu qoyskiisa gacanta ku qabto oo uu isagu kafaalo qaado. Badi lacagaha uu sameeyay ama uu shaqaystay waxa uu ku bixin jiray daryeelka hooyadiisa. Dadaalkiisu waxa uu ugu dambeyn noqday mid soo muujiya ififaalo midho dhal ah. Hadda hooyadiis oo in badan sariiryaal ahayd waxay awoodi kartaa in ay ku fadhiisato kursiga curyaamaha, xitaa mararka qaar socodka ayay tijaabisaa. Balse sanadkii hore waxa uu helay fariin uusan jeclaysan oo sheegaysa in hooyadii aan la daweyn karin. Waana markii uu go'aansaday in waqtiga uga haray noloshiisa uu hooyadiisa uga dhigo mid xasuus reeba. Shaqadiisa ayuu isaga dhaqaaqay gebi ahaanba. Wuxuu iska iibiyay gurigiisa, gaarigiisa iyo hanti kasta oo uu lahaa si uu hooyadiisa ugu dalxiisiyo guud ahaan Shiinaha. Caqli ahaan hooyadii waxay u fikirtaa sida ilmo yar oo 5 jir ah oo kale. Wiilkan waxa uu doonayaa in hooyadiisa uu u sameeyo xasuuso taabagal ah oo ay maalin uun ka sheekayso ama looga sheekeeyo haddii ay dhacdo in ay soo kabato. Waxay booqdeen goobo badan oo taariikhi ah oo ay ka mid tahay derbiga ugu weyn Shiinaha iyo goobo kale oo dalxiis oo ku yaala dalka Shiinaha. Ma hadli karto hooyadan, keliya way dhoola caddaysaa mar walba oo ay inankeeda dushiisa ku safrayso. Wuxuu sheegay in hooyadii ay aad murugo badan u dareemi jirtay markii ay sariiryaal ka ahayd, balse hadda uu isbeddel farxadeed uu ku arkayo. Hooyaday way i xambaari jirtay markii aan yaraa, aniguna hadda ayaan xambaarayaa, ayuu yidhi. Waqti kaagama tegayo in aad wax fiican samaysid, abaalkuna waa uu jiraa mar walba. In aad tallaabo qaadana waa jawaabta ugu fiican, ayuu hadalkiisa raaciyay wiilkan. Sawirada ninkan oo xambaarsan hooyadiisa ayaa ku baahay baraha bulshada Shiinaha, wuxuuna mutay ammaan fara badan iyo bogaadin. Waxa uu hooyadii xambaarsan yahay muddo badan. Wuxuu socdaalka safarkooda soo dhigaa bartiisa TikTok oo ay ku xiran yihiin dad fara badan. Guri waxa ah meesha ay hooyaday joogto, ayuu yidhi mar la weydiiyay in uu jeclaysanayo in hooyadiisa uu ku celiyo gurigeeda. Wuxuu intaasi ku daray in beddelkii uu ka qoomameen lahaa in uusan waxba u tarin hooyadii, uu doonayo in sanadaha ka dhiman noloshiisa uu waqti fiican la qaato hooyadiis inta ay ibka dusheeda saaran tahay.